kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaasheeda sharafta leh ku soo dhawaada boggeena YouTube ee Brothers Media Group oo alaaba ka daawataan dhacdooyin cajiib ah oo idan xiiso geliya warbixinadii ugu dambeeyay caalamka iyo gaar ahaan Soomaaliya. fadlan haddii ay tahay booqashadaadii kugu horeysay ee boggeena YouTube ha hilmaamin in aad subscribe saarto gambaleelkana furo si aad u noqotid kumanaanka saaxiib ee boggaan saaxiibka nagala ah ku mahadsanid. dhacdada cajiib ah ayaa maalmahan warbaahinta adduunku isla hadal haysa. waxaan jeclaysanay inaan u turjunno dadkeena Soomaaliyeed si ay update u noqdaan oo caalamka aysan uga harin. dhacdo xiiso leh ayaan idin wadnaaye maxay tahay dhacdada xiisaha leh isbuucan warbaahintu hadal hayso. imaam u dhashay wadanka Uganda oo kamid ah wadaadada ugu caansan dalkaasi ayaa xiriirka loo jaray kadib markii uu guursaday nin uu u maleynayay inuu yahay haweeney sida uu qoray wargeyska Daily Monitor. Sheekh Maxamed Mutumbu ayaa argagaxay markii uu ogaaday in qofka xijaabka xiran ee uu haystay xaaskiisii uu yahay nin lagu magacaabo Richard Mushumbe. wadaadkan ayaa sidoo kale la sheegay inuu la khiyaameeyay ayaa u maleeyay inuu guursaday haweeney la yiraahdo Sawabullah Bukero sida uu u faahfaahiyay wargeyska. xogtan oo sheekada si weyn loo hadalhayay maalmihii la soo dhaafay ayaa lagu sheegay in khiyaanada saaca laga qaaday kadib markii ay boolisku xireen Mushumbe oo lagu tuhmay inuu television iyo dhar ka xaday guri daris la ah guriga cusub ee xaas ahaanta loo dajiyay. haweeney askariyad ah oo ka tirsan booliska oo howlaheeda caadiga ah ku guda jira ayaa baaritaan u samaysay qofkan dumarka ah oo markii dambe xabsiga dhexe la geeyay. hase ahaatee waxaa la argagaxay markii baaritaan dheeri ah lagu sameeyay oo la fahmay in qofkii dumarka loo maleynayay uu yahay nin isqarinayay. sidaasna waxaa jira Mr. Mugero oo uu soo xigtay wargeysku. Sheekh Mutumbu oo ah imaamka masaajid ku yaala xaafadda Kayambinsi oo qiyaasi 100 kiiloomitir dhinaca waqooyi ka xigta magaalada caasimadda ee Kampala ayaa wargeysku sheegay inuu sangogo la wadaagay qofka uu haystay xaaskiisa cusub kadib markii ninka haweeneyda iska dhigayay uu sheegay inuu caado qabo. durbaba waxaa ninka la xiray ku soo ognay dacwad isugu jira khiyaano muuqaal bedelis ah, tuuganimo iyo inuu si sharci darro ah qalab ku qaatay isagoo been ka sheegay aqoonsigiisa saxda ah ayuu yiri Mr. Mugero oo la soo xigtay. wargeyska Daily Monitor ayaa soo tabiyay in Sheekh Cabdinuur Kakande oo qaadiga gobolka u dhacdadan ku tilmaamay mid nasiib darro ah haddana baaritaan lagu wado nidaamka. waxa kale oo lagu soo waramayaa in Sheekh Isa Busulwa oo ah imaamka ugu weyn masaajidka uu Sheekh Mutumbu khudbadaha ka jeedin jiray uu sheegay in hadda xiriirka loo jiray wadaadkaas iyadoo la dhowrayo sharafta muslimiinta iyo diinta islaamka. Daily Monitor ayaa intaas ku dartay in Sheekh Mutumbu uusan gurigiisa tagin 4 maalmood ee la soo dhaafay. aad buu igu niyad jabay waxa dhacay wuxuuna u baahan yahay in la talin loo sameeyo. waxaa sidoo kale laga soo xigtay ila wareedii aan la magacaabin laakiin ilaa hadda lama shaacin cidda sheegatay ama cidda ku lugta lahayd dhacdadan ama suurtagelisay in sheekhanan loogu bedelo gabadhii uu guursanayay. daawadayaal intaasina waxaa ku ekeed warbixintii xiisaha lahayd ee aan idinku soo gudbinay boggeena YouTube ee Brothers Media Group. inta aan midaan mid ka xiiso badan ku kulmi doono waxa idinkaga tagaynaa sidaas nabadgelyo.